madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaya ayaa intii aanu ka anba bixin magaalada Hargeysa waxa uu kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada Soomaaliland laba beelood oo walaal ah oo dhawaan shaqaaqa ku dhex martay deegaamo ka tirsan gobolka Sool labadan beelood oo ka soo jeeday deegaamada Xudun iyo Taleex ee gobolkaasi Sool ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland uu halkaasi dardaaran uga jeediyay sidii ay nabadda u ilaashan lahaayeen labadan beelood oo dhawaan heshiis ku kala saxiixday magaalada Hargeysa ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ku dhiirigeliyay inay halkaasi ka sii wadaan nabadda isla markaasina ay halkaasi ku soo afjaraan shaqaaqa udhaxaysay labadan si beelood madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaaya waxa uu sidoo kalena labadan beelood kula dardaarmay inay ka wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa deegaamada ay degaan loogana wada shaqeyn lahaa arrimaha bulshada kulankan oo ahaa mid albaabada u xidhnaa isla markaana madaxweynaha Soomaaliland uu ku weerinayay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay labadan dhinac ee kala matalaya labadan beelood iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland kuwaas oo ka warbixiyay waxyaabihii uu madaxweynuhu kala hadlay odayaasha labada beelood waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxay madaxweynaha ka wada hadleen dhowr qodob si fiican ay soo afkarteen waxaanay ka wada hadleen qodobo ay ka mid tahay dowladduna ay run ahaantii ku hawlanayd muddo dheer oo ay ugu horeyso turxaan bixinta iyo nabadeynta iyo heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee degan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan walaha ka socda dharkeengeeyo qayaad iyo bahar same hawlaha ka socda Taleex يا سمكاب علي فارح علي يتن ريرش بيلي يبيد رئيس وإلهي لوجو مهد نقمانته سي نيت سمية يا سفكرت لبض بيلود هنقول هذا أي كودا مات إلا هالشيء كولا اللي هالك كرعي وانو قاضني وحين جاه بونا وانو قرني وانو كبلني وانو بلن قاضن waxaan kaloo madaxweynaha kala hadalay dhibaatada ugu weyn ee deegaamadaasi inay tahay wax qabad la'aan iyo maamul la'aan ka soo bilownay 1990kii wuxuu naga badan qaaday madaxweynaha iyo wasiiraduba inaanay hakran doonin mashaariicda iyo wax qabadka horumarineed ee dadku xaq u leeyihiin si taa loo helana waxa saldhig u ah in la helo nabadgelyo iyo safgarad labadayadii reer ee halka goobjoog ahayd waanu ballan qaadnay wixii dan u ah ee dadka dawladdu u soo wado inaanu anala nabadgelino soo la dhaweyno kalana shaqeyno waxaanu kaloo codsanay oo madaxweynaha ka codsanay in hawsha Xudun ay dawladdu ka gashay loo baahan yahay mid la mida in laga galo deegaanka Taleex iyo kulana xoojiyo kuwa hadda socda ee ka socda nawaaxiga dharkeengeeyo waana madaxweynuhu naga aqbalay nala gartay waxaan kaloo ka ballanay in aanay dhicin isku xaq dambe oo deegaanada aanu ka soo jeedno dib uga dhaca hadduu yahay mid siyaasadeed iyo hadduu yahay mid kale oo faldambiyad wixii aanu ka qaban karno wadajir uga hortagno hawlaha diiwaangelinta waa ka wada hadalnay waxaanu ka codsanay madaxweynaha iyo wasiiradaba in deegaanada dib u dhacsan wacyigelin bay u baahan yihiin wacyigelinta socota in la xoojiyo si wanaagsan baan arrintaas u dhacday aad iyo aad baan la soo afkartay haddaana ilaahay ka soko waxa iska leh xukuumadda madaxweynaha ka yahay أحمد محمد سيلاني يوسيرها أفرتي وسيرة حدن يمي ما هاد قارة يونا كلا أرنتها أرما أنو قول هذا لو حكم إذا حوجنت النبت قليلة الدي اللي بقدر كده ليه هاي هرمارينتا محايا هاي تويان مشاريع ذا ودرك عصو مالها صايدي ودعين مالها كلا شقاقين كيشران وحكي كوده ودولتنا أي gacan bir la ku qabatay taa hadeer socotay dharkeengeeyo ka socota iyo tataleexo iyada lafteeda u baahan sidan oo kale in looga shaqeeyo intaa ballan baan ka kala qaadanay
khadar macalin deeq Somali News Hargeysa.